Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa channelkeena Wantage Media. Maanta waxaan idin tusi doonaa sidee taleefanada Android-ka ah loogu isticmaalaa laba Facebook, laba WhatsApp, laba Messenger, laba Viber, sidee loogu isticmaali karaa. Waxaa loogu isticmaali karaa horta waa muhiim taleefankaaga inuu yahay firshanada hadda imaaday oo firshimadan oo firshanka ultimada ah inuu yahay ama softwarada ultimada oo ku jiro si markaad kor soo dejisid oo noqon karo firshanada saan ah. Haddii uu yahay firshanka meeshan ay dhaqdhaqaaqayso ma kuu lahan taleefankaaga dual messenger wax loo yaqaano. Aan marka gudagalno dual messengerka sida loo furto. Ugu horeyn setting-ka dooro, kadib waxaad dooranaysaa advanced features. Waa meeshaas advanced features ku qoran tahay. Markaan doorano waxaan tegaynaa marka meel ay ku qoran tahay dual messenger. Use two separate account for the same app. Ku isticmaal labo separate ah oo siman oo ku isticmaali kartid taleefankaaga laba application si separate ah. Separate waxaa ka wadaa si siman. Hadda waxaad u jeedaa Viber on oo yahay, Facebook on oo yahay, WhatsApp on ayuu yahay, Messengerna on ayuu yahay, Skype-na on ayuu yahay. Intaan waxay iigu jiraan ayagoo midkiiba laba ah. Marka wax saddex waxaa ku jiro WhatsApp-ka. WhatsApp-kan wuxuu leeyahay waxaa jiro WhatsApp la dhaho WhatsApp GB. Hadda marka ugu horeyn aan ka bilaabno waxaa u jeedin meeshan labo Facebook. Waxaa ku xiga marka inaan tuso rabaa laba Messengerna waa kuwaasa meesha ka muuqda. Laba email wadaab ku shuban karaba si directory waxaa ugu shuban kartaa email caadi iyo email beta. Laba Skype-na waa kuwaasa. Saan aan isticmaalayo waa application la'aan. Waxaa jira iyadoo application lagu isticmaalayo. Laba Viberna waa kuwaasa kor ka muuqda. Intan laba WhatsApp waa u jeedaa laakiin saddex WhatsApp waay. Waxaa jira WhatsApp lahay WhatsApp GB. Saddex WhatsApp uu ku noqonaa. Hadduu saan taleefankaaga uu leeyahay wuxuu ku noqonayaa saddex WhatsApp. Waxaa kaloo jira application la yiraahdo Parallel Space oo lagu isticmaali karo isagana taleefanada aan lahayn advanced feature ama aan ahayn taleefanadan oo hadda software cusubka lagu soo shubay ama firshankooda la soo kordhiyay. Application-ka waxaa la yiraahdaa marka Parallel Space. Parallel Space marka waxaan doonayaa inaan hadda idin tuso. Touchkan baka dul waaye aniga hadda wuuna install gareysan yahay. Waa kana Parallel Space waa kaasa. Parallel Space marka ku isticmaali kartaa hadda asaga furto banaankan oo dhigaa si aan tuso. Marka asaga soo furtid saan kugu soo kaco wuxuu ku leeyahay soo gasho waxa u baahan tahay oo application ah. Marka hadda WhatsApp GB aan ku sheegay waa kaasa. Aad baa leedahay appka marka inta aad ka dhahdid aad soo gelinay. Marka hadda ku jira waxaan soo gelinaa kan Instagram, Skype, Twitter, Viber, Chrome laba ku noqonaya. Mid walba aad soo gashitid laba ku noqonaya. Appki doonta aad soo gelisid. Intaan abadan ku soo daro laba jeer ayaan isticmaali karaa. Inta waa ka dhex isticmaalaysaa Parallel Space-ka, gudahana waa ka dhex gudahaaga banaankana waa ka isticmaalaysaa meeshan. Marka waxaa samayn kartaa taleefankaaga waxaas ku xiran kartaa marka laba Facebook adoo ku isticmaalayo oo san hadda adigu ku yahay laba Facebook uu ku yahay ama oo hal Facebook inta ku saaran yahay waxaa ku isticmaali kartaa adoo Parallel Space-ka joogo Facebook kale ka kicin kartaa. Laba email kale waa isku isticmaali kartaa. Saddex email waliba ka dhigin kartaa. Hadda taleefankaaga si kasta uu ahaado laba email wuu helaa xilli kasto. Email beta iyo email oo beta aan ahayn email caadi ah. Marka aad Parallel Space ku shubatid waxaa helaysaa saddex email. Linkiga application-ka description-ka ayaan idin dhigayaa halkaas ka raadsada. waa Wantage Media. Da channelka cusubta subscribe like share tana ka hilmaamin qaybta faallada oo commentigana warbixin noogu reeb. daawasho wacan muuqaalka waad ku mahadsan tahay daawashada.